شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا للمانتا وحين قصديسا كهل دونا أصحابيكي سببتيسا ay ku muslimeen laba qabiilo. waxa uu ahaa mid difaaca dadka danyarta ah isaga oo taajiriinta uga soo qaaday jiray sekada. sidaa darteed waxa loogu magac daray kii ilaalin jiray faqiirada. markuu Cusmaan bin Affan ka dalbaday in uu la joogo oo uu siiyo waxa uu doonayo, waxa uu ugu jawaabay oo ku yiri uma baahni adduunyo ama baahi uma qabo. waxa weeyaan asxaabigii weynaa Ilaahay raalliha ka noqday Abu Dar al-Ghafari Jundub ibn Junaad Ilaahay raalliha ka noqday. waxa uu ku dhashay magaalada Madiina. waxa uu ka soo jeedaa qabiilka Qifaar. waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee diinta Islaamka qaata. waxa uu yimi magaalada Makka isagoo isqaranaya ama aan la garanayn shakhsiyadiisa. waxa uu u tagay nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee halkaas oo uu ku islaamay. xilligaas oo nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee uu dadka ugu yeedhayay diinta Islaamka si hoos ahaana ah. kadib Abu Dar wuxuu nabiga ku yiri nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee nabigi Allow maxaad igu amraysaa inaan sameeyo? nabigi Allow naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu ku yiri ku noqo dadkaagii una sheeg diinta Islaamka. joog ilaa aad amar dambe iga helayso. Abu Dar wuxuu yiri waxaan ku dhaaranayaa Ilaaha ay naftaydu gacantiisa ku jirto. waxaan ku dhawaaqayaa diinta Islaamka dadka hortooda. wuxuu yimid Kacbada halkaas oo kaga dhawaaqay shahaadateynki. kadib markii ay maqleen mushrikiintii intay u yimaadeen ayay garaaceen oo nabar gaarsiiyeen. kadib waxa uu yimid Cabbaas ibn Abd al-Muttalib nabiga adeerkii. wuu sabirsiiyay markaas ayuu la hadlay Quraysh oo ku yiri miidan ogeyn inuu yahay qabiilka Qifaar iyagoo dega jidka uu inii soo maro ganacsigiinu ee Shaam. kadib way istajiyeen oo way iskaga tageen. waxa uu ku noqday qabiilkiisii isagoo ugu yeedhaya diinta Islaamka. waxaana islaamay bar ka mid ah qabiilka Qifaar iyo qabiilka Aslam. nabigu markuu u hijrooday nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee magaalada Madiina waxaa soo dhaweeyay Abu Dar iyo qabiilka Qifaar iyo qabiilka Aslam. nabigu soo dhaweynta aad buu ugu farxay. nabigu naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yiri qabiilka Qifaar Ilaahay ayaa u daba dhaafay, qabiilka Aslamna Ilaahay ayaa nabadgeliyay. Abu Dar waxa uu ka mid ahaa dadka ugu dhuliga badnaa ama ugu tawaaduca badnaa xagga Ilaahay. waxa uu gashan jiray dharka qaadimkiisa dhar lamida. waxa ay wax wada cuni jireen qaadimkiisa. Abu Dar waxa uu aad u jeclaa Ilaahay iyo rasuulkiisa. nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa laga soo wariyay inuu yiri qof waliba cidii uu jecel yahay iyo aakhire macuud ahaada. Abu Dar Ilaahay raalliha ka noqday waxa uu jeclaa cilmiga iyo barashadiisa. Ali ibn Abi Talib Ilaahay raalliha ka noqday waxa uu yiri Abu Dar waxa uu cilmi dheeraad u lahaa waxa ay dadku ka caajisaan. waxa uu ahaa nin ka saahiday oo wax baahiya aan u qabin adduunyada. Abu Dar waxa uu ahaa nin ka saahiday oo aan wax baahiya u qabin adduunyada. Abu Dar waxa uu la mid ahaa sidii nin safar ku jira oo qaatay sahayar oo safarka kaga baxayo. sidaas oo kale ayay wala dhigneed adduunyadu. nabigu naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yiri Abu Dar waxa uu Ilaahay ku manaystay ama uu Ilaahay uu siiyay suhdigii Nabiyullah Ciise oo kale. Abu Dar wuxuu yiri xilligii nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee cuntadeedu waxay ahayd xoogaa yar oo timira, xoogaa yar oo caana ah, kamana kordhinayo ilaa aan kala kulmay Ilaahay. sidoo kale wuxuu yiri taajirnimada waxaan ka jeclahay faqriga, caafimaadka waxaan ka jeclahay xanuunka. Abu Dar ayaa nin waxa uu weydiiyay maxaad u samaysan weyday xoogaa yar oo beera way ku anfici lahayde. Abu Dar wuxuu ugu jawaabay miinaan amiir noqdaaba, waxa igu filan xoogaa yar oo timira, xoogaa yar oo caana ah. Abu Dar
waxa uu ku noolaa meelaha saxaraha ah, halkaasuu kula noolaa wiilkiisa iyo xaaskiisa ilamaa iyo wakhtigii uu ka xanuustay. xaaskiisu markii ay aragtay xanuunka hayaa inuu yahay mid aanu ka kacayn ayay bilowday inay oydo. markaa ayuu ku yidhi, maxaad la ooyeysaa? waxay ugu jawaabtay, waxaan la ooyayaa adigoo ku xanuunsanaya meel saxare ah oo aan cidna aanay ka dhoweyn, oo aanan hayn waxaan kugu kafmo, awoodna aanan u lahayn aaskaaga. abudar waxa uu ku yidhi, marka aan dhinto imaydh oo ikafan oo waddada idhig. ciddii waddada soo marta ku dheh waa abudar alkhafaari. markii uu dhintay ee ay meedheen oo ay kanfeen waddadana dhigeen, ciddii ugu horreysay ee waddada soo martaa wuxuu ahaa asxaabigii cabdilaahi ibni mascuud iyo dad la socda oo ahaa reer kuufa. cabdilaahi waxa uu su'aalay gabadhii, jinaasadan ama meydkani waayo? waxay ugu jawaabtay, meydkan ama janaasadani waa abudar alkhafaari. cabdilaahi ibni mascuud wuxuu yidhi, nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee run buu sheegay. nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi, abudar isagoo keligii ayuu socdaa, isagoo keligii ayuu dhimanayaa, isagoo keligii ayaa la soo saarayaa. intaa kadib cabdilaahi ibni mascuud iyo jamaacadiisii way ku tukadeen abudar wayna aaseen. ilaahay labadoodaba raalli ha ka noqdee. taariikhdu waxay ku beegneyd 31 ama 32 hijriyada. ilaahay ha u naxariisto abudar alkhafaari. innagana ilaahay ha inoo naxariisto oo ha inoo dambi dhaafo if iyo aakhiraba.